taniya markii madaxweynaha Soomaaliland uu wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta u magacaabay wasiir Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan ayaa waxay soo tarayay cabashooyinka ay ka qabaan bulshada rayidka ee ku dhaqan dalka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda axsaabta siyaasadda iyo kuwa laftoodu ku jira xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo dhamaantoodba ku eedeynayay in wasiirku xaraashay dhulka iyo guryihii dawladdu ay lahayd ee ugu badnayd danta guud siyaasi Siciid Xaaji Axmed Qolombe oo ka tirsan madasha wada tashiga iyo toosinta ayaa wasiirka howlaha guud iyo guryeynta waxa uu ku eedeeyay inuu iibiyo dhul badan oo ay dawladdu lahayd isla markaana uu noqday buu yiri dilaal u kala adeega xukuumadda iyo ganacsatada dalka anigu waxaan leeyahay Cali Mareexaan oo dhulkii haray oo dhan iibiyay oo dilaal gabigiisu waa dilaal wadankan wuxuu ka yahay waa dilaal ayaa hadlayay qaar ka hor ooyaya meeshii booliiska dagaalka guriyii booliiska Burco Berbera meel kasta uu boobay Cali Mareexaan iyo low lifes gabigoodba ku nool dilaalnimada dhulka haddaad tiraahid dhulkaagii kaalay oo iibi wadan ku soo arkay halkan waa kuwa iibinaya iyo kuwa ka daba ooyaya Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir Suldaanka guud ee madax dhaqameedka Soomaaliland Abwaan Axmed Salebaan Bidde ayaa iyaguna waxay sheegeen wasiir Cali Mareexaan uu ku haysto beer ay lahaayeen ilma Salebaan Bidde oo ku taalo koonfurta magaalada Hargeysa madaxweyne halkaas waxa ku qoran go'aan saxiixday adag oo ka hadlaya beertii ilma Salebaan ee waxa la soo geliyay ciidan leh ma taaban kartaan dhulka waxaasna waxa sameeyay wasiirka howlaha guud Cali Mareexaan ayaan hortaagan waxaan u rabaa meesha madaarka in qaska dhaco beeraha Hargeysa deganina ay iskaga hor yimaadaan ninka maanta bedelaya waxa weeye Cali Mareexaan isaga meesha dhulka raba aan wax kale ka oran maayo wararka ka imanaya magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddu ay iibisay xabaalaha saadada ee magaaladaasi isla markaana meeytidii ku jirtay xabaalahaasi laga soo faqay iyadoona arrintaasi ka hadlin mas'uuliyiinta wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo bulshada ku dhaqan magaalada Berbera oo iyagu arrintaasi argagax ka muujiyay arrinkaas wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil haday tahay iyo haday guud ahaan tahay doona wasaaradda diinta iyo awqaafta haba yaraatee wax war kama hayso saaka waan ku soo kalahay waan imi goobtaan imi waa xilli hore oo saacad markii laga soo baxay waxaan imi iyadoo 10 xabaalood laga saaray waxaan filayaa ilaa 20 xabaalood bay ahaayeen arrinkaas waxaan leenahay waa tacaadi lagu tacaadiyay dadka dhintay ilaahay oo naxariistay marxuumiinta ahaa nimanka Itoobiyaanka baa jooga marka waa ayaan daro cid kasto damiir laba hadii baritoolna waxay noqonaysaa xabaaliga war in la deyrun bay ahayd wax kale aad ma jirto ninkii markii asliyadeedii hore laayeen aanu inta mitire u dib xitaa xabaalo uga kacay waa la arkaa afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo isaguna dhawaan ku qabtay magaalada Hargeysa shir jaraa'id ayaa waxa uu sheegay in wasiirka howlaha guud uu iibinayo dhulka leynka booliiska ee bartamaha magaalada Hargeysa oo ay ku nool yihiin dad maatiya in dhulkii ay ka harsanaa leynka booliiska iyadana dib loo xaraashay waxa laga iibiyay hantiile magac weyn leh oo aan doonayn in halkan laga sheego magaciisa haddii ay ka joogsan waayaan hantilayaasha Soomaaliland waanu fadaxadeen doonaa mid baan magacyadu u sheegi doonaa mid walba hantida qaranka uu la wareegay ee sifaha qeyr sharciga lagu xaraashay hantida qaranka waa la iibin karaa laakiin waxa lagu iibinayaa waa in sifa sharci noqoto markay san noqoto sifa qeyr sharciya waxaad ogaataa hantilaha iibsanaya ama lacagtiisa u badheeray inuu ku shubo inay hal bacad lagu lisay waxba ka jiraan ay noqon doonto lagala xisaabtami doono dhinaca kalena murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ka hadlayay xaflad taageerayaal ku soo biiriyay xisbigaasi lagu qabtay magaalada Burco ayaa sheegay in xukuumaddu ay biinayso dhulka bacadlayaasha ee magaalada Burco ee ku yaala bartamaha magaaladaasi berberi meeday dekadii meeday madaarkii mee warshadii istibirka meeday dhulkii mee ma aysan midna warshadii leerka ma haysan hadda waxaa laygu yidhi xabaali bay marayaan xabaali bay soo saarayaan waddankuna waa la wada mid halkan wixii loogu talagalay dhulkii danta guud iyo bacadayaasha waa la iibiyey baa la leeyahay dadkaaba laga iibiyey madaxweynuhu wuxuu yidhi waa hanti qaran oo ummadda ka dhaxaysa
oo aan la iibin karin waynu ogaan doonaa laakiin waxaa la leeyahay waa la iibiyey kuwa iibsadayna qaar khayr qaba maaha baan leenahay. haddaba eedeymahaasi kala duwan ee loo soo jeedinaya wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ayaa wasiirka wasaaraddaasi cali xasan maxamed cali mareexaan oo isagu dhowaan hortegay guddida ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada oo warbaahinta wax ka weydiisay inuu noqday wasiirkii dhulka ugu badan ee dowladdu ay leedahay iibiya ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay jirto islamarkaana ay u iibiyeen sifo sharciya. waxa weeyaan waa inay dhammaan nidaamka maaliyadeed ee dalka financial systemka dalka iyo shuruucda dalka waa inay waafaqsan tahay, waa inay xisaabaadka martaa, waa inay khasnada dawladda gashaa, waa inay auditor generalka ay soo martaa. intaaba way soo martaa. iibkana waxaa iibiya guddi qaran oo ka kooban wasiirka maaliyadda, wasiirka howlaha guud, hanti dhowraha guud, xeer ilaaliyaha guud iyo guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka. marka waxaanay ku dhacdaa dhammaan khasnada dawladda dakhli iyo kharash. maxaa lagu qabtaa weeye su'aasha karna maxaa kan lagu dhisay, maxaa guryaha lagu dhisay, maxaa hanti dawladda lagu dhisay, maxaa wasaaradaha cusub aad aragtay lagu dhisaa, maxaa kuwa dibadaha lagu dhisaa, dakhli soo galay oo ay ka mid tahay iibka hantida qaranka sifo sharciyana way ku baxdaa. haddaba eedeymahaasi loo soo jeedinaya xukuumadda somalilan ee ku saabsan inay iibisay dhulka ay bulshada somalilan wada lahayd ee danta guud ayaa sidoo kale magaalada boorama iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka awdal ay sheegeen in xukuumadda iyo wasaaraddu ay sidoo kale iibiyeen xaruntii badhasaabka gobolka awdal. dowladihii hore ilaa iyo intii midkaan dowladii sida barmarka laga soo bilaabo ilaa dowladii daahriyaala ugu dambeysay ay dhooraysay ilaalinaysay. markaan ayna magaaladii dantii guud magaalada dhexdeedii xafiisyadii dowladdu meel laga dhisaa la la'yahay. wixii sharciga waafaqsan ee aan sharciga waafaqsanayn ee dhulka la iibinayeen waxa weeye waa xaaraan, waana arrin laga yaayaqsoodo in mataqaanaa dhulboob jiro. dhulboobkaasoo ku koobnay buuriga. badhasaabkii hore ee gobolka awdal mustafa cabdi ciise shiine oo haddana ah badhasaabka gobolka maroodijo ayaa waxa uu sheegay in la iibiyey xaruntaasi islamarkaana xukuumaddu ay sifo sharciya u martay. anigu horta badhasaab waxba ma iibiyo. saxafiyiin baa tiina baadha sharciga dalka wax lagu dhulka waa sharciga xeer 17 baa la yidhahdaa. xeer 17na gebigiisa wuxuu sheegayaa dhulkan la qorsheeyay dowladaha hoose guddida fulin dowladaha hoose ayaa iibiya. dhulkan dowladdu leedahana dee madaxweyne awood u leh dastuur baa siiyey. madaxweynuhu madaxtooyadu ku jiro ayuu intuu iibiyo hadduu ka maarmo mid kale dhisan karaya. uu sheegay waxaan ku leeyahay waxaa jira 3 meelood oo madaxweynuhu sifo sharciya mariyey oo codsi loo qortay oo guddi wasiiraha u saaray. haddaba wararkaasi ku saabsan in la iibiyey xaruntii badhasaabka ee gobolka awdal ayaa guddoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid oo isagu ka hadlayey munaasabadda qalinjabinta difcaddii 14aad ee jaamacadda magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay in socdaal uu ku tegay magaalada boorama ay bulshada ku dhaqan magaaladaasi uga ashkatoodeen wasiirka howlaha guud iyo guryeenta cali xasan maxamed cali mareexaan oo ay sheegeen in khaatiyaan uga taagan yihiin buu yidhi dhulkii danta guud ee ku yeelay gobolka awdal. baradhaweyto aan tegay boorame ayay ii ashkatoon reer boor waxay dhahayn warniyow wasaaradii howlaha guud baa gurigii badhasaabka iyo kii magaranaysa iibinaysa naga qabo ilaahay. cali baan ku imi cali wasiirka wax u imeen howlaha waxaan ku yiri war ma dhulkii burca ku filan way maxaa boorba ku geeyay baan ku yiri. geesta kalena wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta somalilan ayaa hadalkaasi ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga ucid isagu si aad uga gubtay. horta dad badan baa waxay yidhaahdaan Faysal Cali Waraabe waxba ha u jawaabina. Faysal Cali Waraabe 4 jeer buu yimi xafiiskaygu yimi 4 jeer buu wax isku mid ah igala hadlayay 4 jeer buu igala hadlayay dhul ay u leeyahay airportka Hargeysa oo uu doonayay in la qaybiyo dad shicib loo qaybiyo oo isaguna aad iyo aad ugu involved waxa ugu lahaa u daneynay 4 jeer baan ka diiday isagoo cadhaysanoo aad u cadhaysanoo caytamay bigati weligeyga lama hadal wax boorama ku saabsan. marka waxaan isleeyahay cadhadii uu maalintii igala tagay airportka Hargeysa unbuu cadhawsiisiga kula dhacay. haddii dhul laga hadlayana dee waraaqiisii faylashiisii waan hayaa dhulka magaalada ugu weyn ee guryaha ugu waaweyn isaga dawladdu siisay. xukuumadda xisbiga talada haya ee kulmiyey wakhtigeedu gabaabsiga uu ku sii siqayo ayaa iyadu markay mucaaradka ahayd waxay xukuumaddii ka horeysay madaxweyne daahir yaale kaahin ku eedan jiray intii ugu badnayd inay iibiyeen dhulka iyo guryihii danta guud ee dowladdu ay lahayd iyadoona hadda axsaabta siyaasadda iyo shacabkuba ay si aad ugu cambaareynayeen in xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ay noqotay xukuumaddii ugu iibka badneed dhulka ay dowladda iyo shacabka Somaliland ay wada lahaayeen. Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic Sab TV Hargeysa.